qalinjabintii dufcaddii 12aad ee xoogga ciidanka gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa maanta lagu dalacsiiyay saraakiishii muujiyay ka go'aanshaha dheeriga Lieutenant General Maxamed Axmed Maxamuud taliyaha guud ee ciidanka Major General Sakariya Cabdi Khaliif taliya ku-xigeenka guud Brigadier General Axmed Cabdullaahi Saleebaan Indhayare Brigadier General Daahir Deex Brigadier General Cabdiraxmaan Axmed Nuur Brigadier General Cabdixakiim Maxamed Baache Brigadier General Xasan Cabdi Guudaal dhinaca booliska caadiga waxaa la dalacsiiyay Lieutenant General Maxamed Cali Xasan Komishineerka Komishinka Booliska Dowladda Deegaanka Soomaalida Brigadier General Cabdiqaadir Maxamuud Awtaahir Brigadier General Maxamuud Sheekh Axmed Brigadier General Cali Cabdi Jibaar Brigadier General Cabdirashiid Maxamuud Colaad Brigadier General Aadan Ibraahim Cilmi Brigadier General Cabdinaasir Maxamed Daahir Brigadier General Maxamed Axmed Garaad Brigadier General Mukhtaar Cabdi Cabdillaahi Brigadier General Yuusuf Maxamed Muuse madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo weheliyo hoggaanka xafiiska nabadgelyada Mudane Mubashir Dubad Raagi ayaa ciidamada darajooyinka u xidhay